gaabaad timaadoona maqaaxidan shaaha ka cabin waxay ka dhigantay magaaladii maad soo booqan marka magaaladani waxay caan ku tahay khaasatan maqaaxidan marka la fadhiyo shaaha waxa lagu shubaa baaquliga ama jamcadaasi oo shaahi koobka lagu shubayba halkan lagu shubayaa marka meelaha magaaladu caan ku tahay kulanti wanaagsan daawadayaal maanta waxaan ku suganahay magaalada Ceergaabo waa gobolka Sanaag magaalada madaxdiisa gobolkan waa gobolka Somaliland ugu soo fog masaafo ahaan xagga bariga soo xiga gobolkan wuxuu leeyahay kheyraad fara badan oo dadku badiyaa waa dad xoolo dhaqataa dad beeraley ah dad kalluumaysataa ay dadka gobolkan u badan yihiin waayo gobolkan waxa ku hareeraysan sidoo kale xeebo ay ka mid yihiin xeebta Maydh iyo Xiis oo kale Laasqoray gobolkan ay ku hareeraysan yihiin gobolkani dad fara badan oo waxa jira xoolo dhaqataa dad fara badan oo kalluumaysataa baa jira gobolkani waa gobol taariikhi ah oo dadka taariikhyahanadii waxay sheegaan ama dadka taariikhda dib u raacaa inay ku aasan yihiin ama ay ka soo jeedaan odayaashii aan ku abtirsanay sida odayga Sheekh Saxaaq ama odaygii Samaro Sheekh Samaroon oo kale Sheekh Ciisa gobolkan bay ku aasan yihiin taasina waxay caddeyn u tahay dadku asalkoodii hore markaa gobolkan ay ka soo jeedeen ama gobolkan ay dadku markii hore ay ku noolaayeen magaalada Ceergaabo waa magaalo taariikh weyn bal waxa isku day doonaa mid kamid ah odayaasha deegaanka ee inta badan ku noolaa inuu magaalada iyo taariikhdeedii uu nooga warramo ee daawasho wacan baad leeyahay daawadayaal odaygan yaag fadhiyo Maxamed Muuse la yiraahdo oo kamid ah odayaasha Ceergaabo ama deegaankan Ceergaabo ku nool walbana muddada dheer ku noolaa ayaan bal wax ka weydiin doonaa bal taariikhdii magaalada iyo wixii uu ka soo gaaray uu ka xasuusto iyo Ceergaabadii hore iyo Ceergaabada maanta aynu joogno kala duwanaanshaha u dhaxeeya bal adeer marka hore soo dhawow assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markaan ka warramo maanta iyo waqtigii hore ay ahayd Ceergaabo jirtay ay ahayd waxay ahayd anigu waxaan soo galay 59 ilaa intaa in yar baan ka maqnaa ها إلى برجع إن يربان كم مقنع وحن رجابة كويقين ترى كنول بان كويقين وهي البانو تلنشرم مستحله هو ناكسن وتلا ده لقوا نورا مركا هالكي أي شوكتي تجي بربك ودعي ودعي burburku noogu ugu dhacay waddankaba gobolku wuxuu ahaa gobolkii sidiisii maaha carruur buu talisay waxba isbeddel weyn baa ku dhacayoo raggii talada ku noolaa tala ku noosha ahaa taladeedii waa burburtay wixii ay ka atona dee wax walba waa kaa burburaya taladii oo burbur ah baa nagu dhacday hadee maanta burburka yaga haddaanu nahay qabiiladii haddaanu muuse ismaaciil baa nahay meel baa naloo ka talin jiray oo boqortooyaanu lahayn waa noo talin jirtay waxa guddi baynu haa maantana nin walba isaga isu guddi ah waxaad ka warantaa adeer magaalada aasaaskeedii hore halkay ka bilaabantay markii adigu maadaama 59 aad timday halkay ka bilaabantay ma xasuustaa magaalada markii ugu horeysay magaaladu halkii ay ka bilaabantay halkan ay barduuyaha aanu haddeer fadhinaa awrtaa lagu xidhan jiray magaaladu waxay ahayd intaa hoose ee darista ku dhow bay ahayd marka darista intii afweynayna qabsaday na halkay soo gaadhay maantana waxay maraysaa yuflay ku dhowdahay marka dee anigu waxaan soo gaadhay magaalada tuulo yar ahoo ood iyo cibi carshaan yar yar ah oo aan lahayn daaraba ay ku yar yihiin maantana magaaladu dee aad bay u dhisan tahay waa muuqataa muuqaalkeeda waxaa iiga wanaagsan oo aan ka jeclahay iyadoo taladii ku soo noqoto ay maanta taladii heshaa dhulku markaa faqiir buu ahaa hore aanu taladaa ku noolayn waxna nalooma sheegan jirin gobolkan la sheegaa dadka daadoodu inay 100 iyo ama 100 iyo dheeraad ay gaadho taa maxaa sababooda malaynaysa waxa u sababa cimiladeeda wanaagsan
anigu haddeer waxaan ahay 83 baan ahay anigu dee rag iga waaweynina waa jiraa marka ilaahay mahadii dee waxaan u wadaa cimilada inay waa deegaanka iyo hawada iyo inay hawadeedu wanaagsan tahay dhulka oo meel wanaagsan tahay ay ku taallo oo caafimaadkeedu ku wanaagsan yahay baan u haystaa marka sidaasaan dee iyadana wax uga ogahay oo meeshu meel caafimaadkeedu aad buu u wanaagsan yahay caafimaadkeedu aad iyo aad buu u mahadsan yahay oday maxamed muuse oo naga warramay taariikhda magaalada iyo wixii uu ka xasuustay iyo magaaladu waxay caan ku tahay nabad iyo khayr baan rajeynaya